hadda waxaan iskugu nimid waa xadgudubka ka dhanka ah ee jinsiga ee lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed ayaanu arinta sharciga u sameyntiisi waay qabiyo qoraal waa sharcigan waa hindiso in badan la soo waday wax kasta ogaada oo aan la sameynayo sharci ahna oo waxaan diinta islaamka ka soo horjeedo dhan ma keenayna meesha laakiin wixii diinta islaamka ay waafajinayso ayaan u keenaynaa meesha marka sidaa daraadeed maadaama uu dhibaatadii badatay hadda ka sii dareen dadka Soomaaliyeed in ay gabdhihii Soomaaliyeed si xun ugu xadgudbaan qaarkood intay kufsadaan waliba dilaan ay soo tuuraan qaarkood wixii la rabay lagu sameeyo oo dadkii dhaqamo kala duwan ay yeesheen meelo badan ay tageen waxyaalo badan ay soo arkeen burburkii iyo dawladnimadii aan ka daahanay waxay keentay xumaan fara badan ay keentay in dadkii dhaqan aan lahaan jirin bariga hore gabar baa la kufsaday la maqlana magaalo gudeed waxba lagu kufsan jirnaa duurka wax lagu kufsadan baa la dhijir gabar baa bari iyadoo geel wada ama loo wada la kufsaday laakiin hadda waxa la arkayaa in ay magaalooyinka dhexdooda ku soo dhiirinayaan dadkii falalka xun qabay I think in waxaan maleynaa dad caafimaad qaba ay ahayn sidaa daraadeed marka waxa laga maarmaan noqotay sharci waxaas xakameeyo oo Ilaahay baa na siiyay sharciga xakameeyni lahaa oo kitaabka Quraanka ay ku qoran tahay maadaama haddaba aan dastuur annagoo kitaabka Quraanka haysana dastuur dawladda Jubbaland ay leedahay ama dawladda federaalka ay leedahay ama goboleedyada ay leeyihiin aan sameeysan iyadoo waafaqsan diinta islaamka ayaa haddana tan saas oo kale tawa dastuur baanu sameeysanay dastuurkaas oo waafaqsan diinta islaamka kadibna ka turjumayso in dadka gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha adduunka joogaanba waa sharafta bini'aadamka waa hooyadii dadka dhalaysa waa hooyadii warshadii bini'aadamka soo saaraysa hadii lagu xadgudbo oo loola tago wax aan Ilaahay raali ka ahayn oo ilmo maalin walba aan maxaahayo loogu talagelin sidii ahaydo macnaha aan ahayn ilmaha loogu talagalay adduunka inay imaadaan loo imaado oo nasabkii uu doorsoomo oo dhaqankii doorsoomo oo wax walba uu doorsoomo nabadgelyana ma jirayso waxna ma jiraayo marka saa daraadeed qof walba wuxuu u baahan yahay cadaalad inuu helo qof walba wuxuu u baahan yahay gabadhiisa inay nabad ku socoto qof walba wuxuu u baahan yahay ilmihiisa iyo asaga naftirkiisa inuu nabad ku socdo u baahan yahay uu joogo marka bini'aadamkana sidiisa haduu Ilaahay ka cabsan waayo dawladdu ka cabsada haduu waayo wuxuu rabo sameeyay sida xoolahaas oo kale tawaay wuxuu rabo sameeyay saadaradeed waxaan anagu go'aansanay sharcigii tacadiga ka danka ah ee bini'aadamka loo geysanayo fal kasta caruurta ha noqoto haweenka ha noqoto ragga xataa ha noqdaan wax kasta ha noqdo in muxuu ahayo aan soo bandhigno oo in badan ka soo shaqeynay waa qabiyo qoraal waay hadda sharcigaas oo ay qubro badan markii hore soo hindiseen oo diinta islaamka iyo khibrad u leh cilmiga kaloomaaddigaba kadibna ay looyaro fiiriyeen oo sanad iyo something laba looyar oo shahaadooyin haystaan oo Jubbaland ka shaqeeyo ama Soomaaliya ka shaqeeyo oo looyaro waaweyn ah in ay arintan ay u fariisteen oo fiiriyeen oo sharciga yaqaano kadibna ay soo gudbiyeen kadibna annaga hadda aan rabnay in la tala aan gelino la tashi la sameeyo dadka akhriyaan oo wixii ka qaldan intaan dawladda iyo baarlamaanka iyo aan u gudbinin ay dadweynaha ka doodaan wixii qaldanna banaanka la soo dhigo wixii saxsanna lagu raaco oo aan fikradiina iyo dhageysano ilaa wixii wax lagu maamuli lahaa idinka waay dawlad sideedaba dadka ay xukuntay wax uu sameynayso sharciga waa shacabka shacabkana intiina ma tashiin marka saa daraadeed maanta halkan la iskugu yimid